الله صلى الله عليه وسلم وغورين وزير الدولة وسارد المعظم في يتمتع وزير الدولة وسارد المالية قدوميها قبل السنة كل بانك قلها وكيل لدى كل بانك قلها دجانك توفرها كوحدة كبد عقدة كل كبد عقدة قبل السنة وضياشة هي مرتشرف تكله لما أنت وعندكم سلام إمارة كوجيك لما أنت وعندكم سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت يا أبا مغفر أحسن هاي شرف بيت هاي الإمام بخاري إمارة كوجيك متبعدة iyo marti sharafta kale ee gobolka ka socota barasaabka gobolka dhammaan ciyaartooyda odayada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa kadib aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa xafladda tan qada sharafta ah ee uu noo sameeyey wasiiru dowlaha maaliyadda runtiina waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa waa wasiirkana iyo wasiirada kalena hadhow markaan magaalada tagnay saasaan u sheegi doonaa tababar u jeedaa iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa kelmad mid ka mid ah ciyaartooyda si ay uga dareen celiyaan maamuuskan iyo qada sharaftan aadka u qiimaha sareysa ee loo sameeyey laba xubnood ayaa siin doonaa cabdi faarax baan uga siinayaa هذا مرلوات كمان محل عليا وسيدولها وسارة المالية ودنا عبد الله سعدين وسيدولها معدنت يتمرتها محمد فرح دعالة برصاب قبل السنة دميها الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحن هلكن أولا كالسلام يا وسيدولها مالية مضانة اسماء عبد الله سعديد عداني هي وزير الدولة عدنك تمرتا دكتور محمود فارح الدعالي وكل سلام يا حلبانك القرى وكيل سليمان بخاري وحن سلام يا حلبانك القرياش الدجاج وبدا ضير محمود وسبت شاوع بعض سبورتيغا وهو جميل يسدوها قبل السنة مستر محمد توبرها أحمد وحكى الله سلام يا كواحدة كليه وفتي جديدة موسى صالح إيو سعيد بعض إسبورتك هل كان ما أنت شوفتي أنا كفاني نربتي صحافة وتشرفك إيو ولا بادي كل بلدنا وصبح الدولة عندنا هاي كده لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سلام دبليل إلهي سبحانه وتعالى ما هاد سكله ماريك حقين كل الدواء يعني اللي أبي وسكت من أبيو هذا هو اللي جبودي كلا يستوى كتيرة وحن ما أنت كنتي أبي أبو مهد عليا وزير عبدالي وهلكن ما أنت نجوم موصي ترى شرفتن إيه ما هي قاية وقالوا مالتي أنا سوق قال لي مالتي إحتي أيام يسووني محنكو ده هذا مدحتوية ده شكل العاد جاي وزيرنا قالوا عكوري يلا ودي شوغان لما وزير ذي كلام ووزير كي كواد الجبل كواكر سلام عليكم عكوري ولا الوزير سياسي بيشت لكنوا بدو بيان لكم يا أنا جماعة سنية لك اللي هي عكوري مركا إن شاء الله أبي أكبر بعد عليا مدن وزير رون هانتي ولا فلور بوكية هاي جولكا رتها إيضا ومانتي نقول عزبينا في الحقيقة مرة بعد يوم تبلاد وانتم بعد عليه مدن وزير أكبر ما تصلتها إن شاء الله وكل لو يكسر والله بكرة يشيلون وزير دولة هاك الفرية يحبلك لو وزير عندما نبله بعض كلك أنا كشيء جديد أيا ولا كل أبليكيشن يسوق بيه مركي كل وزير عدان وبلاغي وما في العين كده بيه waxaa kaloo halkan runtii soo dhaweyntii koowaad iyo qada sharaftii koowaad baa nagala qayb qaatay naguna casuumay maalintii hore bahda isboortiga iyo xubnaha iyo guddidaha iyo intii meeshii maraysayna ii sheeg Axmed Diiriye runtii
runtii hawsha kale ku dhacday iyo gabakaabada iyo sida uu shaqeeyey iyadana halkiisaan tahniyadda ugu geynaynaa oo horna waa ugu mahadcelin kara ugu mahadcelinayna intaa markii aan ka gudbo mudanayaal iyo wasiiro iyo xildhibaanaba runtii qoladan isboortiga inta aan wada soconno ee reer Sanaag waa inama sharaf leh runtii marka aan ku faanayno aanu leenahay insha Allah koobkiina waa ku guuleysanay biidbillah insha Allah waa rag sharaf leh intii aan arkayay isboorti ama dhalinyaro karaamadooda iyo dadbadooda iyo qiimahooda cid lamida maan arag runtii aad bay sharaf leh gelgeli iyo goob kasta iyo madal kasta waa ka sheegaynaa waxaan ku rajo weynahay ilaahay inkii inaanu koobka ku guuleysan doono waa kaloo faanno abdul xaqiiqan 8 kooxood ee maanta isugu yimid tartan ciyaareedka ee halka kan maanta Hargeysa ku ciyaaraya kooxda Kenya ama gobolka Kenya ee koobkii qaranka isu gaaminaya waa annaga yaanu sanaagnahay waxaanu rajaynaynaa insha Allah kubadda cagta oo aan horena u qaadi jirnay imikana inaan qaadayno xubnaha kale ee ka mid ah maxaan ku raadey orodada basketka iyo ciyaaraha kala gedisanna iyagana biladii aan caanka ku ahaan jirnay tan sanaagnahay aynu qaadi doono iyadana taana waan aad baan ugu runtii faraxsanahay waxa farxad ii ah bil xaqiiqan maanta in wax farxad ii ah inaan insha Allah kooxda maanta kubadda cagta iyo kooxaha kale aan tilmaamayba aanu aad iyo aad ugu kalsoonahay in aanu insha Allah bal dahaba gobolada dalka aanu qaadi doono oo aanu insha Allah waan karo iyadana soo dhaweynayna hadii ay dhacdo calaf baa la cunaa waxaan calaf lagu lahayn cidna ma cunto laakiin waan ku kalsoonahay waan ku rajaynayn u jirjaweynahay alamintada tababarada sida ay ciyaartooyda caalamiga ay u yihiin iyagana waan ku kalsoonahay koobka qaadi doono hadiiba ay dhacdo kubaddu waa barmood iyo barcad haday dhacdo in laga deemi garanaysaay nalaga adkaan baaya hadii dhacdo in laga yar garanaysaa taa waa soo dhaweynay إن شاء الله تعالى قول لقبل ما ينوبلنا وحينوبلنا عيال وناك سيد عانك بكو أهين الرجال ده نجيد بركة أي عيال تتاي سعتي دين المدن العدين تاع يكون بهاش سعود جاي يكون باس كهبين يبا يصير اللوك هذه أم هذه أكبر الدين لوين لو هاي فور أمل لو وين ليدي يا أنتو كارتين وحلاي مانتنا تي يتبين شباك يدون قاضي شو يعيار ولان وين المقاضي أو كله حنك إلى هذا يعيار ولانك لا عندنا كل وقاضي إن شاء الله لا عندنا كل وقاضي إذا بتنا وين المقاضينا توصل معها إن شاء الله وسوسو ضوضوب وحن آدي وفرح سنة هاي مدري الوزيرو يوم حنك إلى هذا حل بعنا ما حن ممكن صورنا هاي إن نبادي دورنا هذا قبل ما بعد بقول إلا يا وزير عطاني جزاكم الله خير بارك أكبر ما صار سيدا أدمان كل ما أنت يسول ويسك لنيرنا يجوا بالقوة فاننا ورد كوكينا إنه هيا عيار وين كينو هيا وبدي هذا كيه وعنكسر وين يا إما كنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد كنتي وحا نجا في الله قبل السنة وقبل كنتي أنا أسود شيء اللي بعنا أنا كان تاسو قاعدان شرف المطهي وأنا يمكن هذا قينا ولا يمكن قاعدين أنت تبنا ونقول هنا ونقول تعالى استمعي هذه من في عكال قاعدان ما كلينا قط هذا لكن عيار وناقة هذابته لقن وناقة وحوي تاسع إلى لفت القيم وسرع عدانا وحنا هذه أطلب محضنا قيا سيدا يدبوا وقتهين وأن تعالى وأن حل ضيق له وأن كدع له وأن وحى الدون يقدم السياف يسوي الشعري هاي يسوي رمضة حق الشارع وحنا قبل كالسنة والسير هذا وقهر ريان والسير قبل كالسنة قبل هاي سكت حق وأنا وحاول ابن هاي هو المركز سوق واقع باطل أنا قلنا هذه إلهي ذلك هذا سيدا الشيء والسيركو سيد دولها
macdantuna waa ballan qaaday annaguna waa ballan qaadaynaa casuumado kale ilaa xildhibaano kale hadday tahay anigaba iyo wasiiro kaleba casuumadu kala goy maayaan waana jecelahay geliyo waxa weeye cayaar wanaagga iyo dhaqdhaqaaq markaa keenta magaalada markaas ay ugu xumaysaa in soo dhaweynaysaa waxaynu ku soo dhaweyn اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وزير الدولة بدويها قبلك الجوانكا سدوها مدحda kale sportska baadiye iyo dhalinyarada ciyaaraha dhamaantiinba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka labaad wasiir cadaane waan uga mahad celinayaa kulanka maanta xafladan uu inagu kulmiyay wasiiraad baad mahadsantahay. waxaan intaa ugu gudbayaa gobolka Sanaag wasiiro badan buu leeyahay sidii inaan ka mid ah hadda sheegay buu yidhi waxaan la yimidaan wasiiro lahayn gobolka Sanaag wasiiro badan buu leeyahay. maantana waa arkaysaan waa hordhacoodii qaar badan oo kale aan u yahay way jiraan way ku soo wajahaan. waan ka xumahay mid baan ka xumahay oo ka cudur daaranayaa maalintii ay imanayseen inaanaan goobta joogin laakiin laydinkama maqnayn oo layskagama kiin maqnayn ee duruufaa jiray ragga qaarkii dalku ka maqnaa ragga qaarkii waa xanuunsanayay ragga qaarkii howlaha adag oo kale mashquulka ahay marka ma ahayn in laydin dayacay oo suuqa la iska joogay idinkoo soo socda aad baan ula jeclaa inaan joogo goobtaa maalinta. kale hambalyo waan leeyahay dhalinyarada ciyaaraha halkaas soo gaadhay aad baan idinku hambaleynayaa taa labada tiimka kubadda cagta iyo tiimka kubadda koley waxaan idinkula dardaarmayaa orodada waxaa laga yaabaa inay keli yihiin laakiin labada tiim waxaan idinkula dardaarmayaa teamwork marka hore inaad teamwork aaniyadda ku haysaan weliba tiimka kubadda cagta aynay ka noqonin jeclaysi iyo saaxiib gaara laakiin tiimku aase tiim inaa wada shaqaystaan oo kubadda wada ciyaarsaan oo hadda halkay ku habboon tahay ama jaanis kolku inuu ama ninka jaanis kale aad kubadda u gudbisay yaanad la raadin saaxiib gaara taas waa mid. ta kale akhlaaq wanaag sidii raggii ka horreeyay u sheegay waa mid iyaduna aan idinkula dardaarmayno oo aada u muhiim inay akhlaaq iyo asluub wanaagsan aad ka muujisaan kulamada soo socda iyo ciyaaraha soo socda ay ka qaybgalaysaan. xanaaq la-aan inaydaan xanaaqin wax kastoo idinku yimaada ee aad dulqaad meesha la timaadaan intaasu haddii ay timaado iyo sida dee la sheegay iyo barasaa ku sheegay inay ciyaartoy adag tihiin waxaan qabaa dee koobka waa qaadeen annaguna waxaanu idinka doonaynaa waa koobka orodada dhammaantiinba koobku baan doonay taargetkeenu waa koobka hadday dhici weydo dee waa kaalinta labaad. runtii dee madaxda gobolka halkaa inay halkaa soo gaadhaan waxaan filayaa qayb dhexaadna bay ku leeyihin gudoomiyaha gobolka oo dee aan arko inuu yahay gudoomiyaha firfircoon in badan idinla soo dadaalay madaxda kale gobolka waha noqoto madaxda kale sportska muuse iyo hadlayga muuse iyo tababaraha iyo aad baad ugu mahadsantihiin oo dee inaad halkaas soo gaadhsiiseen idinkana waan idinku mahadcelinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waayahay iminkana waxaynu soo gaadhnay guntiga gebagabadii waxaa inoo soo gunaanadaya xafladda oo idinla dardaarmaya islamarkaana sidaa meeqaamka saraa inoo dhiirigeliyey wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo wax kastoo jira haddana may dhicin saad ka warhaysaan qoliyaha iyaga ayaamaha waxaana mashquuliyey xisbiga kulmiyey iyo musharaxnimadiisa howlihiisa ayaa lagu yar mashquulsanaa iyo hawlo kale oo runtaa furan waxa weeye laakiin wax waliba way qoray idinkamaanaan maqnayn niyadda ayaan idinku haynay ilaha maanta isu keensameyna run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya
وحوي كوبدا marka laga yimaado iyo ciyaaraha haday mid kolay tahay iyo haday mid caagay tahay iyo haday orodada tahay oo inta baan rajeynayay inaad guul weyn waba ka soo hoysay mid labaadna aad ka soo hoysay waxa weeye qodobka meesha yaala waxa tahay mustaqbalkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hada dhalinyarada waxa weeye xulka ciyaarta ilaahay aad barateen ama la idinku tababaray ama qaarkiin bay ilaahay hibaydiis waxa idin dheer akhlaaqnimada aad kubadda ku ciyaartaan akhlaaqda aad kubadda ku ciyaartaan iyo anshaxa aad gobolka la joogtaan iyo wanaaga iyo tartiibta aad guriga la ku soo tarbiyay oo guriga garanaya iyo guriyaha garanaya aatiin ayuu baa ka timaadeen guriyaha ku barbaarnay guriya la mid ah baa ka timaadeen marka waxa weeye sida anshaxa iyo wanaaga iyo akhlaaqda iyo wanaag aad la imaneysaan fa ayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland faan u ah gobolka Sanaagna gaar ahaan faan u ah ruuxaantii marka la eego marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan idin soo dhaweynayaa sida xurmada leh ee maamuuska leh ee aad burco markii aad joogteen aad ku ciyaaraysay sakaawi waxa weeye Ahmed Saciid Caawid abi waa kan qof fadhiya baan u maleynayaa sakaawi waxa weeye hadduu joogi lahaa ma garanaysaa Europe iyo America iyo Brazil lugtiisa waa caymis baa la gelin lahaa ma garanaysaa caymis ayaa la gelin lahaa waxa weeye goolka aad dhalisay waa gool qurbay iyo ceergaabo hadday buur iyo banaan iyo xeeb tahayba intaba lagu reereeyay weeye iyo maxaan ku raahdaa meel kasta oo kale maxaan ku raahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan filayaa inaad wada sakaaw aatiina ma noqon doontaan ayaan ruuxaantii filayaa waxaan kula dardaarmayaa wax weeye casuumadanu waa tii ugu horeysay laakiin tii ugu dambeysay ma tii wasiirka ku xigta xildhibaanada ku xiga hawluhu way farabadan yihiin dad badan oo kale ayaa maxaan ku raahdaa ayaa daneynayay inay maxaan ku raahdaa idin yimaadaan laakiin qodobka ugu wanaagsan waxa weeye anigu waxaan jeclahay aniga iyo international joogto hadday raggan halkan yihiin wasiirku ka mid yahay xildhibaanadu ay ka mid yihiin maareeyu ka mid yahay intaan ka joogta waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweyno qalbi furan iyo runtii reereyn inaan ku soo dhaweyno magaala madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa weeye waxaad ogaataan inta ciyaaraha socdaan iyo markay ciyaaruhu dhamaadaan hadday shaqo tahay iyo hadday wax kala tahay inaan diyaar u nahay marna uu shakiyada kaga jiro waxa weeye dhexda waxaan u xiranay hadday wadada ceergaabo tahay siday u dhamaan lahayd siday wadada maxaan ku raadin dekada meydha u dhismi lahayd oo iyadana lacagteedii loo hayo maanta oo ilaa 300 oo mitir badal la gelinayo maxaan ku raadin oo la dhisayo waxaad wadogtay dhakhtarkii ceergaabo lacagta la geliyay ilaa lacag 5 milyan oo dollar ku dhow ayaa la geliyay wadogtay iskuulkii dayaxa caanka ahaa in maanta la dhisayo 2 milyan iyo badh lacag ku dhow maxaan ku raadin lagu dhisayo waxaad ogtiin waxa riig iyo ceel ka socda maxaan ku raadin wadanka gobolka aynu ka nimeeyay maxaan ku raadin waa gobolka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu ballaaran waana gobolka ugu khayraadka badan nin kastoo Soomaaliland joogaan uu intiina ku nool dhalinyaradaana waxaad ogaataan haddaanu cid ka fakarayno ama haddaanu cid waxaan u sameynayno waxa weeye waxaas oo dhan waxaa loo sameynayaa inaad sidii anagu aan labada habeen iyo u dhaxaynay ama saraar ku dhamaanayno inaydaan idinku wiigna joogin saraar ku jirin maxaan ku raahdaa barcadana aydan maxaan ku raahdaa saraar aydan one week kale ku jirin ama dagaar oo ceergaabo ku muuqatana dagaar ba dhaafi waayay sababta laamiga loo sameynaya qofka waa sidaas marka waxa weeye hadda yarsanina calafku waa halkiisa nin walba ilaahay waqtigii uu wax u qoray laakiin waxaad ka fikirtaa dawladdeenu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda ka yahay ee uu hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa uu si gobolka geliyay 23 sanadood ee jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay dadal meel geliyay laba geliyay ninkan doonaan madax badan baa dalka soo martay oo maxaan ku raahdaa soo waqti walba wuxuu u bareeray oo diyaar u yahay ilaa wadada dhamaystiro waxyaabaha kale xiran ninna kuma soo toosin wadada ceergaaba dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland sameynaysa ninna kuma soo toosin dekada balba dhakhtarkii ay noo dambeeyaan iyo maxaan ku raahdaa iskuulada iyo hawlaha ceelasha iyo waxaas dekada iyo ba mar wada bilaabmaya iyo wadada ceergaaba mariyaynu ka toosnay maya kabeena toosin
aanan idinkaga tegayaa waqti aynu joognaa qadadiina waa la dhigayaa sidii aad u ciyaarayseen quruxda badnayd ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan nin kasta oo inan dhalay uu lahaa ilaahu inankayga muu kaasoo kale noqdo inaad sidii ku ciyaartaan inaad habkii wanaagga ahaa iyo sharaftii aad ku guulaysataan biidmillaahi kariimna saddexda ciyaaro ka socdaan ba hadday baaski tahay iyo horta orodada dee waryaade horta orodada buuri baynu haysanaa kiina meel laga qaada meel orodada horta waa inaynu ragga buuraha ku tababartaa orodda laga qaada horta orod dheer oo dhan waa inaynu cunnaa dee waan lagu habsaamin oo la yidhaha reer sanaag hadda soo garanaysa waayo ninka buuraha ku koraa waa highlandis baa la yidhahyo wadnihiisa xitaa wuxuu noqdaa ayaa qaata ma garanaysaa marka baxiiqo ma daalo yani waa waxyaabaha caanka lagu yahay markaa saddexda waxaan idin rajeynayaa inaad guul ka keentaan ilaahayna idinku maxaa ku ilhaamo wasalaamu calaykum waraxmatullahi